waxaan uga mahad celinayaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dhammaan madaxdeena oo isku hawshay inay maaragtay nagu dhiirigeliyaan inaan magaaladan saan quruxda badan aan ku raaxaysano xilligan. tan iyo markii dawladda federaalka Soomaaliya ay bilowday gulufka ka dhanka ah kooxda qawaarista ee shabaab soona gabagabaysay wajigii koowaad ee dagaalka haatanna lagu jiro wajigii labaad ee dagaalka qawaarista lagu xiroonay geeyga Soomaaliya ayaa caasimadda Soomaaliya waxa laga dareemayaa isbedel xagga amniga ah kaasoo ku saabsan in lagu diirsaday dagaalada iyo baactanka lagu haayo kooxaha qawaarista shabaab haatan oo idin kaga hadlayno xeebta Liido waxaan joognaa hotelka Elite oo kaabiga ku haya badweynta Hindiya kaasoo caawa ay ka socoto bandhig faneed ku aadan farxadda iyo nabadda ka jirta magaalada Muqdisho. waa kuwan qaar ka mid ah shacabka Soomaaliyeed ee iskaga kala yimid gudaha iyo dacallada daafaha magaalada Muqdisho kuwaas oo waqtigooda farxadda ku qaadanaya aaga xeebta Liido. magacaygu waa Hani Maxamuud Ciise oo ku magac dheer Hani Kuwiin waxaan aad ugu faraxsanahay caawa inaan ka soo qayb galo cawayska ka jira Elite Hotel. waxa kale aad saaid ugu faraxsanahay inaan haysano wadan amniga oo aan nabad aan ku caweynayno dhamaanteen. waxaan rajaynayaa hameenada ka badan oo ka sii qurux badan inaan ka soo qayb gali doono. ayaan xasan basri ayaan wadani iyo qadar ibraahim keey waa fanaaniinta qaranka Soomaaliyeed qaarkood oo caawa waqtigooda kula qaadanaya shacabka waxayna dareenkooda iyo fikirkooda ku aadan isbedelka amniga iyo nabadda ka jirta magaalada Muqdisho uga warbixiyeen warbaahinta qaranka Soomaaliyeed. Mariya Ilaahay baa dhasiyay nabadan iyo barwaaqadan sidaan filaayo 5 sano ka hor ama 10 sano ka hor nabadan lama haysanin. waxaan rajaynayaa inuu Ilaahay noo siyaadiyo sidoo kale waxaan uga mahad celinayaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dhammaan madaxdeena oo isku hawshay inay maaragtay nagu dhiirigeliyaan inaan magaaladan saan quruxda badan aan ku raaxaysano xilligan. waa baasha Allah wax maaragtay wax laga sheekeyn karo ma waa jeclaalahay insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo in barnaamijyo oo qurux badan munaasabadaha ciido kale sidoo munaasabadaha dawladda soo socda insha Allah inaan kaga qayb qaato goobahaas quruxda badan National Theatre waliba sidii dib loo dhisay wali meesan dhicin qof shacabkiisa kula qaata ama waqti si laakiin qofka ugu horeeyay la qaata ayaan jeclahay inaan ka mid noqdo insha Allah. mid ka mid ah maamulka hotelka Elite ayaa uga warbixiyay adeegyada ay ugu bixiyaan bulshada Soomaaliyeed habeenadan oo kale. horta isbedelka wadanka oo jira awgeed farxad weyn inoo tahay in kumanaan qofood iskugu yimaado barxadeena kadibna ay ku baashaalaan cawayskooda madadaalo iyo isdhexgal bulsho anagoo ugu talagalnay. waxaan qabanaa habeen walba oo khamiis ah arbacaan ay sii bixayso waxa sugu yimaada dhammaan bulshada Soomaaliyeed iyagay fanaaniintooda isdhexgalo madax iyo mas'uuliyiin intaasna waxaa number 1 u ah amniga magaalada oo isbedel weyn ku imaaday. marka ma hadda kooda waxaan siinaynaa ciidamadeena oo amniga si fiican u sugay hadduu amni jiri lahayn intaana ummadda musku imaan lahayn wax walbana waxaan number 1 siinaynaa amniga. taliye aadan jeella waa sarkaal ka mid ah saraakiisha u xilsaaran xasilinta iyo xaqiijinta amniga caasimadda waxa uuna warbaahinta qaranka Soomaaliyeed uga warbixiyay asagoo ku guda jira gudashada waajibaadka shaqada qaranka oo igmaaday dadaalka iyo wada shaqeynta shacabka iyo ciidanka Soomaaliyeed ay sameeyeen taasoo sababtay in xilligan lagu caweeyo goobaha dadka isku kala yimaadaan gaar ahaan xeebta Liido ee degmada Cabdicasiis. booliisi military waxaan dhanoo ah shacabka haddaan shacab la heli lahayn u hilow qaba ammaan maanta heerka aan soo gaarnay amba meesha la taagan yahay ee amniga caasimadda lama soo gaarin. waxaa fura u ahaa indha u ahaa shacabka يعني وحسين هذا كأركين أنا هذا عاوة وحنو ما تنسين هالكان ردينا السير اللي أركره هالكان وحاكو عاوني يصير اللي يريادو بدن
oo aan bila ka hor aan lagu arki jirin inay saan isugu yimaadeen hal meel oo qura amba hal meel oo yani sidaan oo kale iyo hawo qaadasho ay isugu yimaadaan Burhaan Macalin Xasan warbaahinta qaranka Soomaaliyeed xeebta Lido magaalada Muqdisho